بسم الله الرحمن الرحيم هاي وناكسن طبعا عاو waxaan maaragtay kulligeen marti wada nahay Xuseen Nuur Axmed al-Xuseen ku magac dheer oo magaalada Cergaabo lagu soo booqday hore waxaanu maqlay maktabada weyn al-Xuseen wax badan ay duubtay ayaynu maqlay marka caaw Xuseen inoo maqnay waynu hor fadhiyaa wuxuuna soo gaaray dabaaqadii nadwadii markay dhamaanaysay buu nagu soo biiray intaas oo dhan magaaladu joogay hawlo waaweyn buu yimi oo ay ka mid tahay sixidda iyo dabagalka taariikhdii abwaankii Xaaji Aadan Afqalooc Allah u naxariisto gabayo hore oo laga qoray iyo buug hore oo soo baxay dib u habeyntiisii ayuu ku mashquulsan yahay sidoo kale taariikho kale oo gobolka ah ayuu maaragtay hadda ku hawlan yahay marka wuxuu codsaday inuu la kulmo dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee gobolka intan waxaan u garanay marka inay intaas matali karaan aqoon-yahanka Cergaabo dhan meel isku keeni kareen in kamid oo isku jirto suugaaley iyo aqoon-yahankii shaqaalada dawladda iyo shaqaalay kale ganacsatadii wixii oo dhan halkan isugu yimaadaan oo dhalinyaro ah inuu si gaar ah la hadlo ayuu halkan u yimi safarka dheerna wuxuu u soo galay taariikhdaas waa garan kartaan marka maaragtay safar dheer ninka inta u soo maray wuxuu ahaayay waana waxay leeyihiin dadka suugaaleyda ama dadka wax qora oo idaajaaba intuu Nairobi ka soo duulay Hargeysa halgab u yimi oo diyaarad iyo tigir u soo goostay waxaad garanaysaa marka qiimaha suugaanta iyo taariikhda u leedahay inaga halkan joogno reer Sanaaga oo reer Cergaabo laga yaabaa taariikhda abwaanadaas waxa jaan ka mid yahay kumanaan abwaan baa jiro oo taariikhda ay xusuusaay isku hawlin marka arintaas u yimi waa gabyaha dhinaca kale waa abwaan gabayadiisa arki doontaan inkastoo abwaanimada diiday oo lagu sheegi karo haddana marka gabayadiisa aragtaan waxa oranaysan dadka qirib doonaba waxa la qofka doo waxa loo arko wuxuu isku sheegto maaha qofka abwaanimada iska sheegto oo dadku la qaadan waayaan tan noqon maayo laakiin haddii dadku la qaataan oo adigu aan ahayn ba dadku iska ka aqoonsadaan waxa laga yaabaa marka inaad tahay baa dhici karta marka abwaanka caawa wax badan baynu ka weelayn doonaa haddii alla yiraahdo waxaan isna leenahay Cergaabo ku soo dhawow dhalinyaradii kulay dumarkii waa la kurantay iskuulada waa soo martay jaamacadaha waa soo martay caawna dhalinyaradii labeenta ahayd ee reer Cergaabo ayaa la joogtaa madaxdoodii iyo ganacsatadoodii iyo hadalka aan jeclaa inaan wax idinka sheego wuxuu ahaa horta Xaaji Aadan Axmed Xasan oo loo yaqaan Xaaji Afqalooc waxaan doonayay in aan gabayadiisii iyo taariikhdiisii wax idinka taabto waxa la yidhi baadinimaan lahayn bay ag joogtaa waxaa laga yaabaa 9 sano ka hor mar halkan aan imin war taariikhdii maxaa laga hayaa runtii wax badan la iguma kordhin imikana ninka in Xaaji Aadan ayuun baa runtii ninka loo odayaa xagga luqadda naga caawinay laakiin taariikhda ama gabayada xaajiga ninkaas ayuun baa runtii wax iga taray waxaan ku yidhi Axmedow labadeena wax nagu dhaamayno wax weydiina ma garanaysaa ma igu yidhi marka haddaan anigu dib isugu yaran noqdo anigu waxaan dhashay 62kii 70kii iyo 2diina waxaan tagay Hargeysa anigoo miyi ka imid oo waliba runtii qaybta iga maqanay waxa ahayd geel maanaan lahayno in yaroo hala oo niman maadir lahay ayaan raaci jiray kuwa anigoo heesta aan ku soo xareynayo anigu samaysta oo 10 jira ayaan Hargeysa imid malcaamad baa la igu daray noloshii iyo wixii baa dib burburay ciyaal hudheelaan noqday hudheeladan ka shaqeeyay kadibna 76 ma xamar ugu tagay ninaanu ilmaadeer ahayno makhaayad caan ahayd markaa ku haysto oo dadka inta badan wadanka Soomaalida ka muuqda ay isugu yiman jireen Cabdidheer la oran jiray Xaaji Aadanna Cabdidheer saaxiib ahay Cabdidheer ninkaan ilmaadeer ka hayn Cabdi Maxamed Roobla la oran jiray ayay saaxiib ahay marka aniguna Hargeysa markii aan imi ilaa 12 jirkaygiiba waxaan hudheelu lahaa halkan ku lahaa ninkaan ilmaadeerka nahay ayaa wuxuu saari jiray gabayada Xaaji Afqalooc dadna halka ayaan Xaaji Afqalooc aniga oo cabsan ayaan xamar tagay da'daydiina yara kortay oo 14 jir ahay xaaji baan halka iska helay ajaladihii iyo wixiina dib baan u saaro anaaba makhaayadii qabsado ninka shida ee saaran aanu noqdo sidaa taasi waxa ii saamaxday inaan gabayo badan oo xaajiga u leeyahay aan xifdiyo inkastoo qaarimka ay kala lumeen waxa kale oo jirtay in xaajiga laftiisina aanu isbaranno waxoogaa yar khadamaadku u baahan yahay aanu qabto oo aanu halka xiriirkan aanu ka yeelano xaajiga laftiisii ahaan jirin berbera idilka Soomaali nin abaana mooye mushtara lama aqoonayni 4 iyo 5 caraba makaan aada ku lahaaye ardal baaniyaal iyo hindi baa ubax u saaraaye ayaga astaystay nin kale kuma ilwaadnayne
idinkoo afmeerkiiyo ka yimi idhanka gaaroodii oo soo arraday oo berbera adhiyo geel keenay ahminkaaga goortaad gaddaad imata daaskooda haddaad tidhaa ascaarta iyo maryaha iibku wuxuu joogo afku dhabasho mooye su'aal ma oggolaanayne sida eyda iyo dacawaday idin eryaayeene areemaad arjood iyo xumaa ku oggolaydeene areemaad waa hooyada waxaa ku sameeya findiya baa layidhi areemaad arjood iyo xumaa ku oggolaydeene nimankii adduunkiina dhacay idil jiqoonkiisa iyo carabtan reer shixirahe ee adhaxda gaagaaban itifaaqa zamanka hurdada ku ibtilowdeene wax akhbaarta laysugu dirayey oy ula ekoonaatay inaa ehel qubuur iyo tihiin aadmi meyti yahay ixsaan kama falayn xoolahay ururinaayeene kuwii dahabka alla koodin jiray eegga waafo qore in yar baa hadhee laga kaxay aragkii soomaale ilmaadeeradiin baa ku jira aqalladoodiiye laga iibsay daaraha waxay ku ismanaayeene aswaaqdii majuusigu fadhiyey eydi laga saariye laga eri arwaaxdii jinkiiyo ubadkii shayddaane may aqoonin diintae dibay ku acbudaayeene ashahaaday guriguu fadhiyey inankii raamraame waa ilaahan hindida raama oo macaabid bay ku lahaayeen hindidu berbere iyo hargeysaba ashahaaday guriguu fadhiyey inankii raamraameen nimankii dabada ka arradnaa eel ku soo noqoyey abdaasha iyo awliyada iyo ehel karaamaadka abalqaasim rasuulka amran ee u ifa kownkoo dhan calayhi salaatu wasalaam abalqaasim rasuulka amran ee u ifa kownkoo dhan nebiguu ku aamina sharciga qaadirka abuuray awqaadda khayrkiiyo bilaha laysu soo ururo halkii sanamku oolaayey baa lagu addeecaaye iqbaal iyo nasraa idiin kacay oo aayaddii rogaye af kastaba ha noqdee waa tujaar innamadiinniye adduunkay heleen kalama tegin aradka soomaale ma inkirin ixsaankae sakadee aad u bixiyeene agoonta iyo faqiirkaba way wada ikraameene ilaah beydkii iyo bay dhiseen waqaf islaameede afartaa hindiya carabtu weydin ablacaayaane ahlan iyo tarxiib xeeladaa ku istareexdaane waxa uurka laydiin fahmaa waa addoonnime abeesada dusheedaad xariir abuye moodaaye ilkahaa balaayada qabay kugu asiibtaaye abkaynimaan ahayn iyo qariib hay ammaanin ee 40 sanaan meerayey oo waan ogsoonahaye addin hadduu kudkuda kaa cuno iyo oofta iyo lowga awalkiisa waad sahashataa aad yar xoqataaya ayaamaha dambaad soo dhacdaa aramidiisiiye awbaashta nimanka ahoo aradka boobaya icla iyo kinaayaba u idhi inaa ogaataane haddayse laabtu idin awdan tahay hadalku waa uufee arwaax maqan ajsaad khaliya baan u addimayaaye aragaha darbeelaan dariiqu ifinayaaye dabbaase olola xaabada haddii loo agaasime ee haddii aad afuuf tidhi ramaad waa umuur culuse bisadaha aad akhlaaqdiiyo dabciga uga ekaateene iyaga isku itaala oo aw ka yidhi meele haddaanayse odhaahdu faa'iido tarin aamuskaa wacane ammaano alla meel eberabaan oohow ka hayaay buuri gabaygaasi waa gabaygaa berbera taariikh fara badan baa ku jirta ereyaa ku jira af carabi leh oo hindi leh oo af ingiriisi leh laakiin dadka mutaqafiintii si fudud ayay inta badan u fahmayaan mawduuca markaa cashada iska dhammaysta inankuna ha casheeyo ka rogo laba saar gabaygaa la yidhaahdo berbera markii uu xaajigu tiriyey uu dadweynaha u tiriyey wuxuu ku yidhi dadweynihii ingiriisku 3 dhardhaar buu ku taagan yahay gumaystuhu markaa ka ugu fudud berri aynu qaadno caaqilada iyo wadaad xumaha iyo hindidii dukaanada haysatay ee meesha ka atooreynaysa dabeetana weerar baa lagu qaaday baa la yidhi hindida berigaa markaa gabaygii berbera halkaasuu inoogu dhan yahay waxaynu u wareegaynaa gabayadii halgankaynu weli sii wadaynaa daadaamay u fiican yihiin caawa hoolkan barakaysan waxaanu kaga soo qayb galnay oo nagu casumay oo nagu soo dhaweeyey oo runtii suugaan iyo taariikh iyo mahadhooyin iyo dhacdo iyo waayo aragnimo iyo xigmad nagula wadaagay sheekh xuseen oo xuseen loo yaqaano runtii oo annagoo reer ceerikaaba oo ceerikaaba joogna oo xaaji aadan iyo taariikhdiisa iyo maasadiisa iyo kabaygiisa iyo beertiisa iyo maxay ahayd caruurtiisa ubadkiisa dul joogna waxaanaan ku ogeyn oo weyn oo raganimo oo taariikh oo kabay oo maasa oo aftahanimo runtii nagaga biiriyey runtii madasha hadalku wuu ku kalaa marka runtii murtidii badnayd ee qaybna isagu uu lahaa xuseen inkastoo aan maasadiisa dhegeysan jiray runtii wax soo saarkiisa iyo dadaalka iyo runtii jihaadka iyo juhdiga ku jiraan aan ka warhayay ismaan lahayn sidan u bilaaran yahay runtii
markaa khayr allaha siiyo isaguna maanse cuntoono maasooyinkii hore oo anigu aan jeclaa runtii oo dee nudkaab kan dambe maxay ahayd dee kabnada ah aan ahayn buu runtii leeyahay oo dee aad mararka qayb kuba khaldasto inay rag ahaa dee xiliya noolaa inuu dee la kabay runtii uu yahay markaa sheekh xuseyni caawa kolley aniga yidi dilu geliyo waxba ku dhawaaday inaan bal anaan isku dayo inaan wax curiyo marka inuu sidaa runtii dee uu ii xalanteeyo runtii buu gaadhay khayr allah siiyo kolley waxaan anugu halkan ballan qaadaya wixii waano iyo wax sheeg iyo tusaale iyo wixii dee uu wacdiyayey bal inaan isku dayo inaan sii wado dee maxay ahayd oo aan runtii sii hayaamiyo markaa sheekha iyo dhallinyarada kale soo abaabushay iyo boqorka abtiga iyo dhallinyarada kale kasoo qayb gashay iyo runtii waa mahadsan yihiin waxaan dhallinyarada aqoon-yahanka indheergaradka waaye aragka boqorada salaadiinta iyo saxaafadda madaxa bannaanba iyo alxuseyni caawa dee bad baynu dhex jibaaxnay aqoon-yahankii la arki jiray iyo waayo aragkii la arki jiray ayaanu irbad annaguna gashanay horta waxaan ku leeyahay jazaaka allahu khayr wa khayra jasaa xaaji aadan axmed xasan afqalooc wuxuu ahaa dee damalka soomaaliya ay harsan jirtay wax weynna waad naga fahansiisay annagu dhallinyaraanu nahayoo xilligii harkayaaca ayaanu dhammaantayo wada dhalay baan u malaynaya malaha dee boqorka noogu yara weyno aad markaas alxuseyn waxaanu leenahay jasaaka allahu khayr wa khayra jasaa waxaa la yidhaahdaa waxaanu ka haynaa annagu xaaji aadan axmed xasan afqalooc gabaygii qiimaha lahaa hadduu geedangago xaabada lagu idlaystaaye mid yaroo inayntiisaabaha soo awaalbaxae isaga anfaaciga hadhiyooda kaafiyae dadkan odaygu goortuu baxayo islaantiisu ubadkooda hadhabaa taco aayatiin hela markii aadan iyo xaawo iyo kaynta la abuuray sidaasay arwaaxdiiyo dhirtuba ku israayeen waanka iyo dhammaan aqoon-yahankan ka soo qayb galay kulankan caawa maamuska badan oo martida inoogu yahay abwaan xuseyni abwaankaa laga daayay buu yidhi siciide aqoon-yahan markaanu dayno ha oday waayo arag aada iyo aad baan ugaga mahad celinaya runtii wuxuu inagu maamusay inuu dadkii ugu magaca roonaa soomaali runtii oo ergaabo ka soo jeeday oo inagu wax badan wakti badan aynaan gelin inuu intuu hargeysa inooga yimaado isaguu taariikhdiisa dabagalo innagana intuu inoo yeedho dee inooga warramo runtii aad iyo aad baan arrintaa uga mahad celinayaa waxyaabaha runtii aan aad ugu faraxsanahay waxaa ka mid ah abaalcelinteeda inaan samayno nin inaga mid ah oo aqoon-yaha ka mid oo yidhaana waxaan kugu abaalgodayaa adna taariikhdaadii inaan qoro oo weliba dee adigu waad isagoo dhintay baa daba joogtaa adoo nool aan dee kula kulmo wax badan kaa ururiyo runtii taasuna farxad weyn bay noo tahay dhammaantan sharaf bay noo tahay inaynu dusheenna dhegaysano murti fara badan iyo xigmad shakhsi ka mida bulshadeenna weyn gaar ahaan hargeysa ka soo jeeda alxuseen ku caanbaxay inaynu ka dhegaysano waana uga mahad celinaynaa dadka aynu soo qaadan doono waxaa ka mid ah Elvis Presley waxaan doonayaa inaan u tilmaamo fankan ay u jibaysan yihiin kuwii uga waaweynaa milaayiinka ka shaqaystay adduunka oo dhan caan ka noqday waxay ku dambeeyeen Elvis Presley baa ugu horeeyay dhowr iyo kontonadii ilaa 75kiiba calanka u siday waana ninka in la biqbiqdan faraha badan iyo waxaan sameeyay bariga hore gaalada lafteedu markay heesayaan intay si quuman isu taagaan baa midho iyo dee waxa la dhadhamin jiray waxyaabaha kale ee magaras ku badhacsan in la gelgelimaysto inta la gelgelimaysanaya ayaa loo tumi jiray wasa hablo niinka sii gashani ay ka dul niinkin jireen marka fasaadkan isbedelka fankan la sheegayo ku sii dhacay ayuu ragga macallimiinta ka ahaa waxa ku jira Bob Marley sida ogtihiinba wuxuu haystay diinta la Rastafaria ee xayla salaasal la caabudo Tafaria waa tafarra mukannan weeyaan waa magacii asalka ah ee xayla salaas Rastafaria waa diin ka dhalatay wadanka Jamaica dhowr 1930kii oo rumaysan xashiishada cabideeda in ajar laga helo oo rumaysan ninka cadi inuu ka sareeyo ninka madoobi inuu ka cad ka sareeyo oo rumaysan xashiishada Ethiopia inay jannada tahay
oo rumaysan xayla salaas inuu ilaah yare yahay waa balaayada noocaasa waxaas u rumaysnaa waxaa la sheegaa dhowr statenkii hargeysa in laba kooxoodo midna Bob Marley la safan tahay midna ay la safan tahay Michael Jackson ay isku laayeen oo maxaad ula yaabaysaa somika Manchester United iyo Liverpool isma ilaaya ama bahashi soo dhacdo وقار كم مرة مقار بكون انتبه مركا waxaan doonay nimankan dhalinyarada ay jibeysan in aan raahdo war meeshu waa meel baase marka saddexdan inaan sheegay saddexduba daraaga iyo wax ka dhow ku baqtiyeen Bob Marley de daraagaas ku dhintay waxa la yiraahdaa kansar baa u raacay oo dabeetana diintii uu haystay khuraafaad ahayd baa tiri kansarka hada iska daweysay waa dambaabista saas ugu baqtiyay Elvis Presley kinadan lagu seexdo ku baqtiyay Bob Michael Jackson kinadan lagu seexdo ay ku baqtiyay imika caruurtii ay dhalay gabadhiisa leedahay war babu dhalina waxaan ka soo qaadanay manida caruurtii uu sheegan jiray waxaan bangiga manida ayaan ka soo qaadanay leedahay marka bal waxaan ku marka dambana waxaan soo qaadayaa qoladoodii kuwii Soomaalida ee anigu aan u garaacsaday ee qaar badan ay runtii ahaayeen waxaan la garanayn imika nada hebelada waaweyn leedu ku ilaa marka meelaha laga sheegayo oo anigu hebel u garanay qaar badan oo kamid waxa kale oo ku jira magacyada ku jira waxa kamid ah ninka la yiraahdo ninkan yar dhalinyarada ah Maxamed Qudus baa ku jira waxa ku jira nin la yiraahdo Khaliif Faarax Xayiro isagoo ma yaqaan laakiin waan YouTube ka bartay oo runtii nin afkaar wanaagsan ayaa ku jira magacyadu waa kuwa gabaygooni qaybtani waxa laga yaabaa inay ka fududaato intii hore waayahay imikana dar laga hoogay waan ka hadli doonaa Hamilton Houston iyo Ben Chaska laga haagay curadada habdhaca muusikada u hanqaltaagaya rag badan baa nafsigu u hortood soo haraatiyay ila hubiyo warar baan ka helay hebeladoodii Hollywood hawaarkay dhashay iyo hadimaday beertay iyo hilinkii shaydaanka ee horaba loo eeday hangalaysigii Michael iyo hilinkii shaydaanka ee horaba loo eeday Presley habqooq u dhigay hab ciyaareedkii macna Presley habqooq u dhigay boqontii uu heeray hangalaysigii Michael iyo Holiftii Marley barbaartii hawadu jiidatay hada la ciyaartay haylaha kuwii dumarka suray hilifka duugoobay ee horarka ugu baaqay iyo halaqi gaadayay hordankii hilbaha qaawan iyo halalacdii dheesha nimankii hormoodka u ahaa hurinta gitaarka iyagoo huq iyo ciil qaba oo hiifa noloshooda oo ay daraagadu haftay oo heenku ka idlaaday oo wali sidii u hadrayay hore u dhaafeen ka hulleelo hoolkii macsida loo hadoodilay ka hulleelo hoolkii macsida loo hadoodilay milaayiin habliyo wiilala oo huraya maalkooda oo hilow u qaba maalin qura gacanta loo haadsho iyo qaar hantida caabuda oo ka hodmay buuqooda waxa hoday hangooladii jinkee soo hogaan baray waa taqaaniino London bay ka duulaysaa San Francisco ayay ugu tagaysaa waxa laga yaabaa inay dhowr boqol kun oo dollar soo khasirto inaan taayir oo dewa qolada de abiyaashoodii maalqabeynka yihiin leesh waxay doonaysaa inay tiraahdo Bob Marley baa saanayay ama Michael Jackson annaga oo tarabuunka nus kilomitir u jirna ayuu saanayay ayay doonaysaa intaas cudurka ay badan iyaduna iskaga daweynaysaa lacagtan iyo waxaana qoladan ka shaqeysta soo saaridda sharaa'idka iyo balaayo baaskana lacagta ka helo oo isaguna de lacagta xataa haduu yeesho waxba kama cunee ilaa hadday lacagtii Elvis Presley oo 15 baqtiyay ay kolba qaraxdaayo bangiyada ku shaqeystaan oo kor u socota inan kaliya ka tagay inantana reerkoodii way ku qabsadeen waxa garacad baato markii dambe adigu waa la iska daayay marka yaani nolosha ku noolaan waxa ku dhinteen baan doonayaan inuu tilmaamo nimanka dhalinyarada ee diiwaanka shay curadada habdhaca muusikada waxan qaltaagaya kuweeni baan soo galaya dar badan oo naftooda hawiray oo teenan halakeeyay oo koobka ilaa hadda sharkoodina haysto dar badan oo naftooda hawiro teenan halakeeyay oo koobka waahan jira hooyada kaligoode Allah uga meeliya dar badan oo naftooda hawiro teenan halakeeyay oo koobka waahan jira hooyada kaligoode hidhiwaa dibaadile ragaan ugu hanweynaaye Allah uga meeliya laba haatan lahaya hidhiwaada geedinka fasiran doona raadiyo garashadu markay heerintay